مقدشو سلام أهلها كرام نعم أحبها مقدشو سلام مقدشو سلام زاحت الركام عاشت انسجام زاحت الركام وعاشت انسجام شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو مقدشو سلام أرضها سلام عيشها سلام أهلها سلام مقدشو سلام كل wanaagsan daawadayaal idilhaantiinba meel kastoo aad joogtaan ramadaanul kariim kuna soo dhawaada barnaamijka hel hadiyada waa barnaamij su'aalo kala duwan aynu ku weydiino dhalinyarada Soomaaliyeed aynu kula kulanno gudaha magaalada Muqdisho isla markaana ay ka jawaab celiyaan su'aalaha ay ka jawaab celiyaan iyo saaxiibada kale ay su'aalaha ka faa'iideysan doona barnaamijka anigoo xasan laka ayaa idinla socodsiinaya TV-ga dalsan ayaad ka daawanaysaan barnaamijka hel hadiyad Supersen ayaa hadiyada kala duwan ku bixinaysa kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka hel hadiyad waagaag daawadayaal markan waxaanu la kulmaynaa qaar ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada Muqdisho adoo soo dhawaanay saaxiib magacaaga magacayga Daahir Cabdi Maxamed daahir dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ka mid tahay aad iyo aad ما شاء الله dabcan su'aalo kala duwan ayaa nasiib u jiri doona nambarka koowaad ilaa iyo nambarka shanaad ayaad xulan doontaa nambar wixii ku xusan ayaan kuu soo bandhigi doonaa dad guuleysata ambaliyo haddii kale waxaan ku leeyahay alaabtii wadada ku qulqul Soomaa aad iyo aad nambarka nasiibkaygaan tijaabinaa maadaama qofkii ugu horreeyay aan ahay waxaan qabsanaa lambar 2 waa tahay nambarka koowaad ee barnaamijka wuxuu ay leedahay waa su'aal aad u fudud oo qaab caqliyan u baahan in looga jawaabo su'aashu waxay leedahay waxaad sheegtaa xayawaan biyaha ka dhasha biyahana ku dhinta biyaha ayuu ka dhalanayaa biyaha ayuu ku dhimanayaa waa su'aal cajiiba waa fikiri kartaa saddex jaanis ayaad haysataa dadaalkaaga iyo jawaab celinta aye hal mar ku celi waxaad sheegtaa xayawaanka biyaha ku dhasha biyahana ku dhinta kalluunka miya kalluunka biyo ku dhashaa biyuuna ku dhintaa miya jaanis kalan ku siinaa kaneecada waay maxaa ku jawaabaysaa kaneecada waagaa magacayga u celi Daahir Cabdi Maxamed daahir su'aashan oo aan ku weydiino ayaad waxaad sheegtaa xayawaan biyaha ka dhasha biyahana ku dhinta ama wax ka dhasha biyaha kuna dhinta waa kaneecada inkastoo aad moodo in jawaabta qaab gadgadaaley lagugu soo dhiibaa umaleynaa mayde waxaa nasiib leh waay Soomaa waxa gadaalay la yiraahdo majaa laakiin dad qaarna daawan waxa laga yaabaa inay isweydiinayaan dadka ugu badan ee koofiyada qaato waxa la yiraahdaa dadka bidaarta leh waa marka isleedahay xogaa ahlu bidaar ayaa ku jirta may aniga ku xaqiijinaa adiga bidaar hadaa leedahay ani bidaar ma leeyahay waa ka waa taasoo dhow haddii daa ku guulaysata ayaa lagu guddoonsiin doonaa dhallinyaradana waxaan leenahay waxaa ka mid tahay saaxiibada dhallinyarada maalin wanaagsan waqti wanaagsan isku dagaaga soo dhow waa dhowahay ramadaan kariim waagaag saaxiib soo dhow waxaa ku guulaysatay funaanad Supersen ay kugu tala gashay intaadan su'aasha ka jawaabina wiil aad u da'yara wuxuu yiri saaxiibkay funaanadu wataa ahlu shaati la ka dhimay aad iyo aad wiil ay saadaaliyay shaatigii bedelkiis funaanada ay gashay wiilkaasna uu maadsan yahay Dalsan TV iyo Supersen waa maadsan yihiin ramadaan kariim soo dhow waata daawadayaal weli waxaan guda jirnaa barnaamijka hel hadiyad telefishinka dalsan ayaa nagala socotaan shirkadda Supersen ayaa hadiyada kala duwan barnaamijka ku bixinaysa markan saaxiib kale oo dhalinyaro ayaan la kulannay marka hore saaxiib magacaaga bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la Yuusuf Cali Maxamed Yuusuf waxaa ka mid tahay dhalinyarada magaalada Muqdisho ku nool si fiican
ma markii kugu horreysay oo barnaamijkan ka qayb gasho haa haye isku daygaaga iyo rajada aad qabtay inaad ka jawaabto waxaan filayaa su-aasha la weydiin doono inaan ka jawaabi doono waa hagaag nambarka koowaad ilaa nambarka shanaad ayaa barnaamijka su'aalo lagu weydiinayaa nambarkii koowaad wuu baxay lambarka labaad lambarka saddexaad lambarka afraad lambarka shanaad haye lambarka saddexaadaan qabsanaya lambarka saddexaad ee barnaamijka waxa uu leeyahay waxaad sheegtaa gobol ka mid a gobollada dalka soomaaliya uguna degmada badan waxaad sheegtaa gobolka ugu degmada badan gobollada soomaaliyeed ee dalka gobolka banaadir waa gobolka banaadir gobolka banaadir waa tahay hambale ayaan ku leeyahay saaxiib adna waxaad ku guulaysataa hadiyaddii ay kugu talagashay shirkadda super sign design waxaan ku leenahay soo dhow inkastoo aad moodid saaxiibo kala duwan markii su-aasha lagu weydiinaya dhinacyada fiirisay in lagaaga soo tuuro jawaabta laga yaaba soo de cunug yar hadda wuu fahmi karaa haddii su-aashaas oo kale la weydiiyo su-aal basiid ahayd gobolka banaadir maga degmo marka kooban saaxiibo wallaahi 17 inay yihiin aan filayaa waa hagaag aad baad umahadsantahay saaxiib soo dhowow waagaag saaxiib waxaa ku guulaysatay maaska afka iyo weliba bugnoot aad ku qoran karto yacni wixii xusuus ku ah haddii noqon lahayd adiga asxaabtaada soo dhowow waa dhow waa mahadsantiin waa mahadsantaha saaxiib waa tahay daawadayaal weli barnaamijka ayaan ku guda jirnaa maalmaha qiimaha iyo kheyraadka badan ee bisha barakaysan ee ramadaan ayaynu ku guda jirnaa su-aalo kala duwan ayaynu ugu talagalnay dhallinyarada aynu magaalada muqdisho aynu kula kulanno daawadayaal markana wiil kaloo dhallinyaro ayaa ila taagan oo aan jecelahay isna inaan weydiiyo bal nasiibka u yeelan doono su-aalaha harsan marka horese magaciisa ayaan hordhigay saaxib magacaaga bismillahi rahmaan raxiim magacayga waa yuusuf maxamed nuur isaaq naanestigu celi yuusuf maxamed nuur yuusuf yemani waxaa ka mid taha dhallinyarada magaalada muqdisho haa dabcan barnaamijka markii kugu horreysay oo aad ka qayb gashay noqonaysa sooma saasaa jeclaa insha allah nambarka koowaad ilaa iyo nambarka shanaad ayaa nasiibku yahay nambarka koowaad iyo nambarka saddexaad ayaa baxay waxaa inoo haray lambarka labaad lambarka afraad iyo lambarka shanaad insha allah waa isku dayaa nambarka doorna nambarka labaad nambarka labaad waagaaga nambarka labaad ee barnaamijka su-aasha ku xusan waxay leedahay waxaad sheegtaa wax markii ay dhergaan dhinta haddii ayba dhergaan oo wax cunaanba kala bax waay saaxiib ma sii noolaadaan maskaxdaada la kaasho dhinacyada iyo dadka markaa fiirisid dabcan inay jawaab nooc kale ku siiyaan ayaa laga yaabaa 3 jeer ayaa fursad haysataa saaxiib soo dhowow yow haddaa isku daya waxay noqonaysaa marka koowaad dabka waa qubaysatay mar labaad maxaa dhahda wax oo wax markii ay dhergaan dhinta yow kaneecadu waa weligay ma maqlin haye mar saddexaad marka saddexaad yow su-aashiis waa fahmi wey saaxiib haddii aan ku dhaho macasalaam nugu kala wad ka warrane wax ma keliya saaxiib nugu kala wad waa magaaladay ka jirtaana uu kala wad waayo waa mahadsan tahay waagaag daawadayaal weli su-aalihii kala duwanaa ayaan weydiinaynaa dhallinyarada saaxiibada ay magaalada muqdisho aynu kula kulanno barnaamijkan oo ah hel hadiyad bisha barakaysan ee ramadaan sanad walba shirkadda subarsen ayaa qabato waxaanu jecelnahay su-aalo maadi ah iyo su-aalo diini iyo cilmigaba inaan weydiino su-aalaha qaarkood si caqliyan ayaa looga jawaabi doonaa oo jawaabahooda ay aad u fudud yihiin saaxiib ayaa hadda ila taagan oo aan jecelahay magaciisa inaan weydiiyo saaxiib soo dhowow waa dhawaa saamaha masha allah magacii waa maad maxamed muuse mahad markii kugu horreysay oo halkan aan ku kulanno markii horreysay waa hal su-aal bannaanka ayay taallaa kolley waxaan u malaynaa alaabtaas inaa uga mirabtid aan u malaynaa alaabtaas gees aan sii rabaano caada ugu goynay miyaa su-aashaas haye laakiin su-aal kale dalbanaysa soo ma haa su-aal kale dalbanaa alaabtaasna amay goysmo kale ay kugu dhacda hadday ugu dhacdo goonaano xalaal caligaa leedaha waagaag lambarka koowaad ilaa iyo lambarka shanaad u ahaa nambarada inoo baxay waa nambarka koowaad nambarka labaad nambarka saddexaad ayaa baxay nambarka afraad iyo nambarka shanaad ayaa inoo haray waagaag nambarka koowaad nambarka labaad nambarka saddexaad afraad shanaad ayuu kooban yahay laakiin nambarka koowaad iyo labaad iyo saddexaad aa baxeen 4 iyo 5 ayaa miiska saaran haye afaraa qabsada waagaag daawadayaal nambarka afraad su-aasha ku xusan waxay noqon doontaa allowyaa dhinacyada layga fiirinin sheeg magac ka kooban 6 xaraf saddexda ugu horeeyo waa wax ay xoolaha ay cunaan saddexda dambena waa midab ama kalar ka mida kalarada haddii aan kugu celiyo sheeg magac ka kooban 6 xaraf 6daas xarafna saddexda ugu horeeyo waa waxyaabo ay xooluhu cunaan
saddexda dambana waa saddex ka mida midabka ama kalarka haddii aad isku daydo oo aad rafato saddex fursad ayaa leedahay allahu akbar soo dhow كعلي بعد عمر صدق su-aasha waxaa ku leedahay waa magac ka kooban 6 xaraf saddexda ugu horreeya waa waxa ay cunaan xoolaha saddexda dambana waxa ay yihiin midab ama kalar ka mida kalarada soo dhowow saaxiib ما يساعد saddex fursad ay haysataa mar koowaad زعما عليك على سوشيال ساعة برادر waa tahay daawadayaal waqti wanaagsan ayaan leenahay daawadayaasheena laba su'aal ayaa inoo saaran miiska oo ka faa'iidaysi u baahan saaxiibkan ayaan soo dhaweynayaa nin samee gacaltooyo saaxiib ramadaan kariim ramadaan kariim maasha allah aad iyo aad waa dhawahay magacaaga magacaygu waxaa maxamed bashir maxamed maxamed bashir maxamed naanas milad maxamedow haa haye kulli yani cadnaan la dhahaa dadka xaafadda cadnaan ay wacan laakiin magacaygi oo dhabti xaqiiqada ee maxamed abshir waaye gabdhaha xiriirkan leedahay iyaguna maxay kugu yeeraan wallaahi aniga gabar xiriir lama lehi laakiin hal gabaraan qabaa maasha allah marwo haa alla yacizak haye sharafo way dhahdaa laakiin oo baase tahay laba su'aal ayaa taala meesha sharafow laba su'aal midkood waxay leedahay sheeg xayawaan dabcan biyaha ku dhasha biyaha ku dhintataa waa la qaatay waxaad sheegtaa xayawaan markuu dherga dhimanayo maba sii waaraya saaxiib haye xayawaan markuu dhergo dhinta saddex fursadna waa haysataa xayawaan markuu dhergo dhinto su-aashaas jawaabteeda isku dayo jibisada ameed jibisada jibishada aday ku taalaa saaxiib hawadaa ku dabto mar labaad haye waxaa dhahday xayawaan markuu dhergo dhinto waaba la dherga horaa laga dhinta wallaahi weligii ma maqlin maxaa leedahay taas gaban kale baa leedahay su-aashaas waa adag tahay way ugu adag tahay su-aashaas oo ku kala qulqulayna ma qulqulayna aad iyo aad su-aal kaloo ka faa'iidaysa ayaa jirta oo iyadana meesha taalla su-aashu waxay leedahay sheeg magac ka mid ah degmooyinka dalka wuxuu ka kooban yahay 6 xaraf saddexda ugu horreeya waa waxay xooluhu cunaan saddexda dambana waa midab ama kalar ka mida kalarada ma kugu celiyaa mar kale waa degmo ka mid ah degmooyinka dalka 6 xaraf ayay degmadu ka kooban tahay saddexda ugu horreysa ee xaraf ee degmadaasi waa wax ay xooluhu cunaan saddexda dambana waa wax markaasi midab ama kalar ah saaxiib soo dhawow saddex fursad kalaan ku siinaa su-aash hal mar igu celi hal mar waa magac degmo 6 xaraf uu magacaas ka kooban yahay saddexda ugu horreysa markii la akhriyo waa wax ay xooluhu cunaan saddexda dambana waa midab ama kalar ka mida kalarada soo dhowow saaxiib su-aashaas jawaabtay ayadina waxay noqonaysaa degmada daynile dayniil markii loo day iyo niil ay noqonaysaa gubata aan leeyahay saaxiib ku celi mar kale inuu su'aaliin waa adag yihiin may walaa bilaa kal ilaabay u fududaa wala saaxiib okay su-aasha jawaabteeda isku day waa degmada balcad degmada balcad saddexdaas ugu xoleysa waa bal saddexda ugu dambeysana waa cad oo kala reey waaga maxamed bashiiro ama ilaa ay shaqaalaha meelahaas intaad tagtay soo wareysad oo kadib soo laabat maya wallaahi inaan qof bilaadan aana weydiin inta markaa ka baxay niyaddeeda kusoo dhacday saaxiib rumey ma kaa tahay xaqiiqiina ka hadlaa waa soomanaha wallaahi aa ku dhehe waagaagaad baad u mahadsan tahay maxamed bashiir su-aasha aan weydiino waa ayd waxaa sheegtaa degmo ka mid degmooyinka gobolka dalka ama gobollada dalka ka mid ah saddexda xaraf oo ugu horreeya waxyaabaha xoolaha ay cunaan saddexda dambena waa kalar waa balcad bal oo xoolaha ay cunaan cad oo midab ama kalar ka mid a kalarada saaxiib soo dhawo aan ku leenahay adoo ka xun ayaa hadiyadaada qaadanay maho aad iyo aad waa mahadsantahay maxamed bashiir hajaajiina soo dhawo maxamed bashiir haga tegin maxamed bashiir haga tegin
aad iyo aad laakiin inta adiga tagan haddii aan kaftamo niyow maxamedow dadka koofiyadaha wato waxaa la yidhahdaa bidaaray leeyihiin tusaale anigoo kale koofiyad ma qaato waxaan isleeyahay xoogaa inaan rajayay latidaa laga yaabaa laakiin maxamed bashiiro alaabaa kuu saarmaa baasha dhacal mariisiis koofidda kulli haddii koofidad waa siiba aa dhaho waxaa laga yaabaa dadkan meesha taagan dhan inay carraana laga yaabaa laakiin halkii raja aan lahayd maxamed bashiiro haddii aa xarayso waa dadkan kale waxaa waaye saaxiib qulqulaan dhihi karnaa ma maya ceeb waa nin dhalinyaro oo bidaar leh laakiin bidaartidiina arkanaa diidanaa soo maaha haddii aan kula sii kaftamo bidaarta farax miya mise waxaa waa fikirka faraha badan waa wallaahi alaabtaasee kugu gashay adiga ka warqabta 4 sano jecel jilaay 4 sano ay keentay 4 sano maasha allah waa ku guulaysatay ma ugu dambeyn alxamdulilah ku guulaystay maxaa leedahay rajaal laa qabaa inay soo baxda miya insha allah way soo baxaysaa madaxa uu ku asturnaa alaab VIP ayaa ku saarneed alaab super sign ku labaysane waxa waaye habeenkiina super sign ama maalintii qaadanay alaabta kale habeenkii ka dhiganay ma saaxiib ما أنا هاد سألتها يعني وحارت شاتي عدنك أو تكوفيد عدنك وصبح أساس هذا ملاها نيو هذا نوع حسلا هذا هاد صار له في عنالي لك واحد عافينا معه ما لوقك صو صارنا عيب هذا كحنا كل تيجينا معه هادي هادي أكو سلام يا بشير واتهاي إن داود رمضان الكريم أيانو دليل سؤالها كلا دوان صاحبة دلنيردا ayaan kula kulmayna magaalada muqdisho telefishinka dalsan ayaad ka daawanaysaan super san ayaa diidaa ku bixinaysa laba su'aal ayaa miskiin oo saaran oo xaraaradda jawaabeedu ay inoo harsan tahay saaxiib soo dhawow waa dhawahay magacayga waa xasan cabdi ibraahim waa dhawahay waana ku dhawahay su'aashiina ka jawaabin diyaaran waa saaxiib xasan waa magac Soomaa aad u weyn saaxiib isku magacana magacaas ay ka garaafeenayaan saaxiib saa rajeynaa inaad jawaabta sida saxda u bixiyaan rajeynaa waa agaag saaxiib laba su'aal ayaa miskiin oo saaran su'aal waxa leedahay waxaad sheegtaa wax markii ay dhargaan dhinta wax markii ay dhargaan dhinta waaba la dhargayey rakaha waa rakaha rakaha waa dharga waa qaraabana waa dhala waana socona saaxiib gubataan leeyahay marka lagu cesho alaabtaas waxaa shub waa ma markaas ay aqoonta ka mid tahay ay xabad kala dhiman su'aal kale su'aasha kale waxay leedahay saaxiibkii waxaa sheegtaa degmo ka kooban 6 xaraf saddexda ugu horeysa waxay noqonaysaa wax xoolo ay cunaan saddexda dambena waxay noqonaysaa color ama midab ka mida midabada soo dhow saaxiib saddex xaraf waxay noqonayaa dhaaday wax la cuno wax xoolo ay cunaan wala ay cunaan saddexda dambena waa midab ama kalarada ka mida mootadaada oo rakaab ay ku saaran yihiin oo ku taagantaa maaho aad u weyn degmooyinka gobolka banaadir waa bas degmooyinka dalka oo idil waa jawaabtaas mahay waa ku kala tegaynaa maaleeda saaxiib kala tegaynaa because ana halaana u malaynaa mo halaa anaga ku nool nahay wixii ka dheer jeebkaaga waa maya gobollada dalkana barati muhiim waay degmooyinkiisa yani gobollada marka lahay degmo barakir beema sheegaya gobol laakiin aada u kala aqaana waa dhamaatay barnaamijka ayay uga faa'iidaysan doontaa oo aan ku leenahay sii dhow adiga rakaabkaaga maalin wanaagsan brother waa hagaag saaxiib adoo xaggayga usoo durkaya magacaaga garaad maxamed warniyow garaad wejigaaga uma cusba haa aad iyo saas waayo waa hadda ka hor barnaamijka waa ka qayb gala maasha allah niyow su'aal iyo hal lambar ayaa haray lambarka koowaad ilaa iyo lambarka shanaad 1 2 3 4 waa la wada sheegay oo way baxeen su'aasha shanaad ama ka faa'iideysi su'aasha shanaad miya ma nambarka shanaad qabsanaysaa mise su'aal tale ayaa ka faa'iideysanaysaa lambarka shanaad kaliya la haray bis hal su'aal oo ka faa'iideysi u baahan lambarka shanaad qabsado nambarka shanaad aa qabsato wuxuu ku leeyahay waxaad sheegtaa midabka ama maxaa soo baxaya haddii la isku daro labada kalar ama labada midab ee kala ah buluug iyo jaalle markii la isku daro midabkee ka soo baxaya niyow buluug iyo jaalle markii la isku daro horta weli rinjiilo ma noqoto garaadow maya niyo iskuma fiicnay dhankaas rinjiga dhankaas rinjiga si fiican iskuma nihin su-aashaas maxaa leedahay marka buluug iyo jaalle haddii la isku daro kolleyta waxaa ka soo baxaya isleeyahay caddaana ka soo baxa saaxiib horta waa mahadsan tahay buluug oo markii lagu daro jaalle oo ka soo baxaya caddaan new garaad guri la rinjiyeyna weli ma arkina u malayna ya saasaa filaaniyo rinjiga iskuma fiicni xaafaddaa degan tahay rinji gormay ugu dambaysa horta guriga waayahan ma loo rinjiyey guryihii hore lee degana waa mahadsan tahay garaad marka saaxiibada kale fursad siinaya insha allah saas waa mahadsan tahay garaad ay soo dhow
waa tahay daawadayaal saaxiibkay garaad aad buu mahadsan yahay saaxiib kale oo dhalinyaro ayaa ila taagan qaybtii ugu dambeysay ee gabagabada barnaamijka Super Sign Design ayaan ku guda jirnaa ee hel hadiya telefishinka dalsan waa ka daawanaysaan markan saaxiib ayaa la kulmay saaxiib soo dhow waa dhow walaalkan ku salaamay adiga barnaamijka anagoo dhammaystiran aniga ugu horeeya ayaa ka qaaday magacaaga Cabdicasiis Jubbaabo Cabdicasiis Jubba niyo wajigiina iyo aniga isku cusub oo maleena ana adiga waa iska badbadana saaca maleena badbad waa badbadoos waay waxaan ka rabaa barnaamijka uga qayb gashay hore ها هو قيب قلا wax ma ku heshay niyow su'aalka faa'iideysi waa laba su'aal oo ka faa'iideysi mid ma isku dayi kartaa wallaahi labadoo lambarka shanta qabsaa bal lambarka 5 horaa loo qabsaday laakiin su'aasha lagama faa'iideysi way ku taalaa oo qof baa u garan waayo waxay leedahay waxaad sheegtaa midab noocee ayaa ka soo baxaya haddii la isku daro midabka la yiraahdo buluuga iyo jaalaha horta rinjis isku tiinaaday rinjiya saacad rinji lamay kubde laakiin xogaa waa qiyaasa xaafadada goor ugu dambeysay horta in rinjiye mise bacweynaha diganta aan kaftamo xala ugu dambeysay habeenimo 6 saac habeenimo cashuurta ugu guuraysa biya caadi laga faa'iideysaa waagaag ay bal isku daygaaga haddaan isku daymo laba mid la isku daro laba mid ugu celi cadda waa buluug iyo jaalle buluug iyo jaalle haddii la isku daro garey ka soo baxa garey allahu akbar weliga maqla alaamaas markii la isku mudoofikay haye su'aal kale ka faa'iideysi ma isku day kartaa su'aasha kale maxaa waxaad sheegtaa wax dhargo isla markiina dhinto waa xabuu cuna ama uu dhargayi waa gudaynayno wax dhargo dhintaa xanuun uma dhimanayo seeta u dhimanale kaas ana ciil wax u qabo dhibaaba la arto su'aashaas caaw soo fiiraa sax waa kula tigi karnaa ma waa kula tigi karnaa taas meel ha iga soo bixisa baadi saaxiib maca salaam ma jirto wallaahi noo kala waday maxaa kala soo waa noo dhamaatay waa tahay daawadayaal laba su'aal oo ka faa'iideysi ayaad moodaa inayna hor taallo saaxiibo badan ayaa isku dayay balse ma aysan haleelin jawaabta saxda ah dalsan TV ayaa nagala socotaa Super Sign ayaa diida kala duwan ku bixinaya markan saaxiib ayaa la taagan soo dhawaanay saaxiib horta in cabaara waa taagneed malaha ma waxba iga sii qishaysa ma garanay soo dhow magacaaga Shaafici leeyahay cadaanood Shaafici laba su'aal oo ka faa'iideysi u baahan ayaa taallo hay isku dayay isku dayay midka xayawaanaadka isku dayay haye waxa sheegtaa wax dharga oo durbadiiba dhinta oo cudur uma dhimanaya dhibaato kale uma dhimanaya kaneecada waa Allahu akbar kanaacinta aniga dhigayga dhuuqday tagay adeeg ku sii maray xaafad kale sii maray waa sii socay mugdi saaxiib yaa alaabtaas waa ka celiyay hawdan kaaga saaray su'aal kale taala hidir ka faa'iideyso waxa sheegtaa maxaa soo bixi kara haddii labada midab ama labada kalar ee buluuga iyo jaalaha markii la isku daro midabka soo baxay xaafadda horta goorma rinji ugu dambeysay xaafadda mar walba waa la rinjiyeeyaa mar hay maxaa ka soo bixi kara marka buluuga soo baxay buluug oo lagu daray aan eriya buluug oo lagu daray jaalo waxa ka soo baxay buluug ha waa ku salaami karaa saaxiib hadaasdiina ka waran okay waa ku salaamay Shaafici soo dhow waa maasanta hagaag daawadayaal qaybtii hore ee barnaamijka gabagabadeeda ayaynu ku sii siqaynaa su'aalo xiiso badan ayaa yaalla oo aad u fudud jawaabahooda markana waxaan la kulannay mid ka mid a saaxiibada magaalada soo dhow magacaaga bismillahi raxmaan raxiim magacayga cali jaamac allah cali jaamac barnaamijka hore ma u qayb gashay maya hadda igu hore cali oo laba su'aala inoo taalla miiska insha allah mid ka mid a inaan ka jawaabaan isku dayaya waxaad sheegtaa wax markuu dhargo dhinta wax markuu dhargo uu dhinto kaas waa igu cusub yahay laakiin su'aasha kale aan diyaar u ahay inaan ka jawaabo su'aashaas waxaa leedahay anoo raalli ka iska fasaxay anoo raalli ka iska fasaxay ilaa ma arag qof wax dhargo hore ka dhimanaa ma arag aniga waa tahay su'aasha waxay leedahay maxaa ka soo baxaya haddii la isku daro ama midab noocee ayaa ka soo baxaya buluug iyo jaallo markii la isku daro weli horta rinji iyo hoolaas ma isku dayda maya balse waxaan aad u isticmaali jiray kalarada maaragtay saynisida aan aad u samaysan jiray kalarada aan isku darsan jiray marka maadaama aan kalarka aan isticmaali jiray waxbaan ka garanayaa maxaa is leedahay haddaa isku dayda laba fursadood aa leedahay markii buluug iyo jaallo la isku daro waxaa ka soo baxaya cagaar waa tahay hambalyi bogaadin ayaan leeyahay waad ku guulaysatay buluug iyo jaalle daawada isku dar waxaa ka soo baxaya cagaar waagii oo kaloraatiga iyo aad iyo aad u isticmaali jiray ardaydii waxaan ahay oo mastarada kaloraatiga isku qaqasi jiray marka xasuustii waa hayaa dib baan u raacay marka su'aalaha dhowr qofood adoo weydiinaan arkay dib baan u soo xasuustay marka kalaradii aad uga shaqayn jiro aan jeclaan jiray in maaragtay aan ka shaqeeyo
aad iyo aad laakiin haddii aan ku dhaho sanadkee waa inaa ii goysidaa laga yaaba laakiin sanadku ma noo raacan kartaa si dhallinyarada u xasuusino oo sanadkan waxa waaye waa wixii markaas adiga 86 iyo 87 waxaan ka hadlaa aniga ya salaam hal sana markaas jiray saaxiib haddaan ku dhaho ka war ma aniga markaas shukaansigan ku jiray ka war naagaan shukaansanaya maasha allah waaga shukaansiga ma ku guul gaartay haa tiyaatarkan usoo wadi jiray aan keeni jiray anoo maaragtay shukaansana aan leeyahay haa safka waxaan ka soo bilaabi jiray sayidkan safka soo geli jiray marka nabadaan haysanay insha allah haddana waa rajay doonaa insha allah nabadaas inkastoo cimrigeenu hore u dhammaan rabo waxaa maqli jiray 40 jirow 40 kale kuma laabno marka waxaan aad u bogaadan ugu dirayaa ambaliyo ugu dirayaa dadka nasiibka u helay fursadahan oo kaleeto oo ku guuleystay nasiibaan u dirayaa waxaan kaloo u dirayaa tahniyad iyo u dirayaa iyo maaragtay fariin mas-uuliyiinta dalka hayso oo maanta dhibaato badan hore loo soo arkay waxaan hadda ka sheekaynaa waa wax 86 markaas nabad baan soo aragnay tii oo kale loo baahan yahay tii oo kale aan u baahannahay oo kala dambeynaan u baahannahay allah subxaana qaadirka ay naga xigtaa aan gacmaha kor u taagano wassalaamu calaykum aad baad mahadsantahay soo dhawaayeen ku leeyahay face mask hadda ku tuuranay ma aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waa waxaan raadin nus doolarkii ama noo gooyaba maalin dhaweydna guddoomiyaha gobolka wuxuu lahaa qabta aan xidhanin waa la ganaaxa xawisi oo igu ganaaxa aniga baan ku hele waa kaas ah waaga saaxiib ambaliga ku leeyahay soo dhawow way joog hore waa kaa mahad celinaynaa jawaabta aad bixis aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhow covid-19 iyo dabaysha cudurrada xilliga ramadaan ood iga badbaadiseen oo nasiib ku helay aad u mahadsantihiin waa mahadsantahay waa tahay daawadayaal qaybtii hore ee barnaamijka hel hadiyad inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa anigoo laka ayaa idinla socodsiinaya Supersen ayaa barnaamijka dabcan iyadoo hadiyado kala duwan markaasi ku bixinaysay tan iyo kulantideena dambe sidaa ay nabadgelyo مقدشو سلام أهلها كرام نعم أحبها مقدشو سلام مقدشو سلام زاحت الركام عاشت انسجام زاحت الركام وعاشت انسجام شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو مقدشو سلام أرضها سلام عيشها سلام أهلها سلام مقدشو سلام